السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي ميلكستو أجوكتان جمعة وناكسن ساكي وجمعة برامجكونا واكي وغوريي برامجكيني سبح نمو تاريخ دروا شانية لباتنك أبريل سنة كالباكونية شانية لباتن قضبضا برنامجك ساكي يعني كواي نوحا كمدا وزارة gaashaandhigga إسرائيل oo markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay dilalkii loo geystay ciidanka Israa'iil muddadii ugu dambeysay iyadoo sheegtay 360 askari in la dilay muddo kooban gudaheed dadka Israa'iiliyiinta oo ka walaacsan sheegashada wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil iyo askarta la laayay ilaa meeqa bilood ayay sheegeen in inta askari looga dilay haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada cajiibka oo soo baxday barnaamijka ku faahfaahin doona abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa maanta oo markaa Jimco ah booqasho ku tagay deegaano ka tirsan Gaza isagoo wacad ku maray in ay sii xoojin doonaan dagaalka ay ku hayaan Gaza kadib markii shalay wacdaro la yaab leh lagu dhigay ciidankiisa maxkamadda dambiyada caalamiga oo diiday in ay markaa ogolaato codsi kaga yimid Israa'iil haddaba maxay codsatay Israa'iil iyana tafaasiil baan idinkaga haya dadka ehladooda lagu haysto Gaza ee Yuhuudda ah ayaa ku baaqay in Israa'iiliyiintu ay isugu soo baxaan bariyo sabti ah mudaharaadyo waaweyn oo ay qabanqaabinayaan qodobadaas ayaynu barnaamijkeena subaxnimo saaki ku faahfaahinaynaa wixii warar ee soo kordhay inta aan ku jirnana waan idinla wadaagi doonaa asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo Jimcaha mar kale waxaan idin leeyahay Jimco wanaagsan haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza waa sidee saaki iyadoo shalay ilaa xalay ay ka dhacayeen dagaalo aad u qaraar dhinaca waqooyiga ee magaalada Gaza haddaba wararkii ugu dambeeyay warbaahintu qorayaan waxay sheegayaan abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa la sheegay saakay inuu booqasho ku tagay qaybo ka mid ah fariisinka ciidankiisa uu ku leeyahay magaalada Gaza isagoo markaa u kuurgalayay xaaladda ciidanku sida ay tahay kadib markii shalay ciidamadu ay la kulmeen weeraro aad u adag oo kaga yimid muqaawamada Falastiiniyiinta iyadoo shalay dagaal aad u qaraar uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza Israa'iil ay sheegatay in looga dilay saraakiil sare sidoo kalena looga dhaawacay askar waxay sidoo kale sheegeen in markaa ay hadda ka shaqaynayaan sidii loo qabanqaabin lahaa ama loo diyaarin lahaa weeraro culus oo Israa'iil ay kaga jawaabto dhaawacii soo gaaray shalay ciidankeeda iyo sida markaa ay uga hortagi karaan qolyaha muqaawamada ee weli dagaalka kala soo horjeeda ciidamada Israa'iil haddaba abaanduulaha ciidanka ayaa waxa uu kulamo la leeyahay saraakiisha ciidanka isagoo ka xog wareysanaya caqabadaha ciidanka haysta iyo sida ciidamada ay isaga caabin karaan weerarada gaadmada ah ee mar walba uga yimaada qolyaha muqaawamada ee markaa Falastiiniyiinta haddaba dhanka kale duqaymo xoog leh ayaa saakay mar kale Israa'iiliyiintu ay ka wadaan xaafado kala duwan oo ka tirsan Gaza ilaa dhowr iyo 18 qof ayaa saakay ilaa hadda la sheegayaa inay ku dhinteen magaalada Gaza iyadoo 24 saac ee la soo dhaafayna dad ku dhow 50 kale ay markaa ku dhinteen xaaladda Gaza ayaa weli ka markaa iyadoo ah mid allow sahla iyadoo dadka ay weli la daaladhacayaan cunno la'aan iyo dawo la'aan iyo xaaladda oo cabsi fara badan ay jirto duqaymaha oo aan kala joogsi lahayn warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya dad fara badan oo Falastiiniyiin ah in ay ka qaxeen magaalada Gaza oo aan la ogeyn halka ay aadeen arrinka ayaa la sheegay in ay ku tilmaameen dadka qaar kumanaan dad oo adkaysan waayay xaaladaha ka jira magaalada Gaza wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa saakay war laba filaan ah sii daysay kadib markii ay sheegtay 300 ka mid ah ciidanka Israa'iiliyiinta in lagu dilay gudaha Gaza dagaalka ka soconaya waxay soo kale sheegeen in ay markaa dhinteen 79 kale oo Israa'iiliyiin ah oo loo qaatay inay yihiin dad rayid ah waxayna ay sheegtay wasaaraddu in markaa ay askartani dhinteen iyo dadkanba
bil gudaheed oo waxay sheegeen inay sanad gudaheed ku dhinteen laga soo bilaabo bishii abriil ee hore ilaa bishan abriil ee hadda lagu jiro ayay sheegeen tirada ciidanka kaga dhigantay Israa'iil 300 askari oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo kale inay yihiin. haddaba warkan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxay falanqeeyaashu sheegeen in tiradu ay intaa ka badan tahay sida ay leeyihiin maadaama iyagu ay hadda qiranayaan 300 askari in laga dilay oo reer Gaza ay ka dileen. haddana waxay sheegeen tiradaasu muddo sanada inay intaa ka badan tahay oo markaa aysan u dhoweyn xitaa sida ay leeyihiin. dhanka kale waxaa la isweydiiyey 79 Israa'iiliyiinta maxay ula jeedaan. dadka qaar waxay ku fasireen madaafiicda Gaza ka soo dhacaysay ee dhulka Israa'iiliyiinta ku dhacaysay oo Israa'iil ay lahayd waynu ka hortagnay in markaa ay yihiin kuwa dadka Israa'iiliyiinta laayay oo 79 kan la sheegayo in halkaa ku baxeen oo gacanta muqaawamada ay ku baxeen. haddaba wararkii ugu dambeeyay Gaza arrimahaas ayaa saakay ka cusub wixii warar soo kordhana barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. markan waxaynu u gudbaynaa dadka eheladooda lagu haysto magaalada Gaza ee Israa'iiliyiinta ayaa baaq soo saaray ay marsiiyeen warbaahinta iyo goobaha dadku ay ku wada xiriiraan ee baraha bulshada internetka. waxay ka codsadeen bulshada Israa'iil dhammaanteed inay isu soo baxaan mudaharaad weyn oo ay bari qabanqaabiyeen kaasoo ka dhici doona meelo kala duwan oo ka tirsan gudaha Israa'iil. waxay dalban doonaan dadkaas in heshiis laga gaaro maxaabiista la haysto oo markaa dagaalka Gaza la joojiyo maxaabiistana la isdhaafsado hal mar kaliya waliba in dawladdu ay heshiis ku gasho in maxaabiista oo dhan la soo daayo oo aan la kala reebin. haddaba dadka ehelada waxay ugu baaqeen dadka kale Israa'iiliyiinta inay dhinac joogsadaan oo mudaharaadyada soo aadaan. dawladda ayaa cabsi weyn ka qabta mudaharaadka berito Sabtiga ka dhici doona meelo kala duwan oo gudaha Israa'iil inuu saameyn weyn ku yeesho goobaha muhiimka ah ee halbowlayaasha sida xarumaha dawladda, guriga Netanyahu, xarunta baarlamaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil. qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa Israa'iil oo laga soo diiday codsi ay u dirtay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee waddanka Holland ku taala. haddaba maxay weydiisatay Israa'iil? sheeko la yaab leh idin hayaa xayeysiinta